mar kale waan idin soo dhaweynayaa waxaan idinku soo dhaweynayaa kulankan runtii aynu maalmo laba cisho ah ku wada tashan doono oo aan kaga wada hadli doono bal qaabka u ekaan doonto siyaasadda aan rabno inaan ku maarayno qashinka dalka oo runtii dhibaatooyin badan inagu haya ujeedada ugu weyn ee kulankan waxa weeyaan in laga wada tashado arrimahaas aan runtii sheegay qaabka ay u ekaan doonaan iyo wax ku darsiga runtii gobolka Saaxil si gaara degmada Berbera bal sida ay u aragto in ay noqoto iyo waxyaabaha runtii ku jiri doona siyaasaddaasi aynu maanta barbilowgeennii u fadhino waxa ugu weyn kale insha Allah in aan bal qiimeyn ku samayno maxaa hore u jiray xeerara ku deegmo iyo ku qaran ahaa si aynu galdaloolooyinkeega u buuxino oo runtii meelahaasi aynu u kabi karno oo ugu dari karno maxay hayday wixii aynu u baahanahay maareynta qashinka waxa kale oo muhiim ah runtii in aan isla eegno waxyaabaha kale ee xeerarka caalamiga ay ka yiraahdeen ama cidii inooga horeysay oo kale ay iyagu laftirkoodu bal qaababka ay mareen tusaalayaasha inoo noqon kara kuwo dhow iyo kuwa kale ee inaga shisheeyaba bal inaynu ka soo qaadan karno tusaalayaal waxaan casuunay hay'ado kala duwan oo dawliya iyo kuwa gaaraba ah waxa kale oo casuunay ma garanaysaa gudiyada xaafadaha degmada Berberi ka kooban tahay waxa kamid ah dawladda hoose si gaar ah u casuunay golaheega deegaanka qayb kamid ah muxuu ahaayay arrimaha bulshada waaxda arrimaha bulshada waaxda qorsheynta maxaan ku dhahdaayay hay'ado kale oo runtii aan doonayo halkan inaan uga mahadnaqo oo ah hay'adda UN Habitat oo iyadu qayb weyn ka geysatay inaynu halkan iskugu nimaadno hawshanna inaan ka wada shaqeyno aan runtii ku ballanay ilaa dhamaadkeega waxa kamid ah UFENCO oo iyaduna hay'ad maxalli ah oo gobolka Saaxil gaar ahaan ka shaqeysa gaafo kamid ah ciidan casuunay waxa kamid ah wasaaradaha sida dhow wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ay u wada shaqeeyaan wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha wasaaradda arrimaha bulshada wasaaradda maxaan ku dhahday caafimaadka oo runtii arrimahan aynu ka hadlayno ay soo hoosgalayaan arrinta qashinka waxa isweydiin mudan wasaaradda deegaanku maxay ka shaqeysaa anaga dhir ba taqaanaan laakiin si guud arrimaha deegaanka marka laga hadlayo fayadhowrka ugu muhiimsan si qofka noloshiisu ay u badbaado waxa ugu weyn ee la ilaalinayaa waxa weeyaan qofka bilaadanka ah badqabkiisa deegaanku ku noolaanayo iyo qaabka ay u eekaanayo in runtii ay xeerar iyo barnaamijyo aynu inagu ka heshiino in wada samaysanay oo wada jir aynu uga wada tashanay ay jaangooyaan dabeedna cidda ka talowda anagu ku soo dabaalno oo ku soo celino xeerarka iyo dariiqyada ay marayaan waxa muhiim ah arrinta qashinka oo si gaar ah runtii maanta aynu kulankan ugu wada fadhino inay tahay wax saameyn weyn runtii dalkan iyo dhulkiisaba ku leh qayb ka geysta isbeddelka cimilada ee aynu arkayno qayb ka geysta heer kulka siyaadaya ee aynu maalmihii ugu dambeeyay arkaynay oo aan tilmaami karo magaalooyin aad taqaaneen oo runtii Berbera ka cimilo dhexdhexaad ama ka cimilo qabooba in ay Berberaba ku soo dhadhowyiin oo Hargeysa ka mid tahay waxa iyaduna muhiim ah in aan ku baraarugsanaano in markaas dhibaatooyinkaas aynu xalino aynu u baahanahay siyaasado iyo xeerar iyo barnaamijyo ama muxuu ahaayay is-afgarad aynu heer halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sareysa aynu ka heshiinay waxba iyaanan hadalka ku sii dheeraan kulankeenu labada cisho intaasuu daarnaan doonaa maalinta koowaad waad haysataan runtii mowduucda laga hadlayo iyo qaabka u soconayso maalinta labaad waxa runtii halkan inoo fadhiya oo daadiin doona la taliyaha arrintan siyaasaddan iyo horumarinteeda ama soo saaristeeda oo runtii ina tusi doona ama aynu ka wada sheekaysan doono bal halka ay mari doonto marxaladaha runtii
aynu u baahannahay inaynu innaguna wax ku darsigeega muujino berbera si gaar ah ayaan u door bidnay sababtoo ah waxay ku taalaa runtii waa gobol dhammaan cimilooyinka waddanka hadday kuleyl tahay hadday qabow tahay hadday maaragtay dhexdhexaad tahayba laga heli karo sidaas daraaddeed wax ku darsiga bulshada berbera iyo madaxda berbera iyo hay'adaha ka shaqeeya berbera ha ahaadaan kuwa dawliye iyo kuwa gaaraba muhiim ayay siyaasaddan u tahay abuuristeeda